السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامتك كدب. الحمد لله رب العالمين. أصحابتا inaad caafimaad qabtiin baan rajeynayaa. anaguna caafimaad qaba idinkan waxaa idiin rajeynaya inaad caafimaad qabtiin insha allah. aad baa idiin salaamayaa dhammaantiin, waan isoo dhaweynayaa insha allah. janalka waan igu soo dhaweynayaa insha allah. aad baad u mahadsantihiin subscribe-ka, waxa weeyaan like aad baad ugu mahadsantihiin. waa idii hayaa mahadnaqaas insha allah. soomaaliya insha allah soo dhawaada. markaste wax cusub ayaad ka helaysiin janalka insha allah. idinkuna ku dadaalo horumarkiisa iyo walaalihiina kale ina aad u faa'iidaysiin ood u dirtiin insha allah. marka asxaabay, waxaan maanta idiin wadaa wax cusub ayaa idiin wadaa insha allah. wax cusub ayaa idiin wadaa insha allah. ka faa'iidaysta, walaalihiina kalena uga faa'iideeya. waxaan idiin rajeynayaa inaad kor ii qaadin insha allah biidin ilaahi kariim. ilaahay subxaana wa tacaala ayaa dadka kor u qaada. ilaahayna waxaan ka rajeynayaa inuu kor u ii qaado insha allah. aad baanad u mahadsantiin subscribe-ka iyo sidaad u daawanaysiin. waa idiin mahadnaqayaa insha allah. midda kalete maanta waxaa idiin wadaa waqtigii qaboobaha ayaa soo galay. maadaamuu qabowgii soo galay, dad badan ayaa ku dhibaato qaba oo dhibaatada ugu weyn ay haysato gacmaha ka dhexmooda ayaa jira oo aad u dhexmooda. inkastoo ay dadka qaarkood leeyihin dhakhtarada oo kale waa xanuun, laakiin qaarna waxay leeyihiin maa xanuun ee waa qabowga ayaa keenaya. markaa siday doontaba ahaato, amba qabowga ha keeno amba xanuun ba ahaado, maxaa dawadiisaa, maxaa faa'iido u haynaa oon doonaynaa anagu haddii aan ka hadlayno markasta acshaabta maxay ka qabtaa in ay ku daweynayso dadkaas oo kale. dadka faraha meelaha cidiyaha oo kale aad u dhexmoonayaan amba aad u atraaf waxakoona oo inta u horeysaa la yidhahdaa ee dhaxantu hayso. ee dadka qaarkood gacmahooga ayaa isbedelaba, kalar kale ayay noqdaan waqtiyada qaboobaha, ma awoodi karaan. taas oo waxa weeyaan daciifnimo bani aadanka qaarkood qabowga ma qaadi karaan. marka insha allah maanta waxaan rabaa inaan idigu faa'iideeyo acshaabta. maxaa acshaabta laga diyaariyey oo looga faa'iideynaya dadka waxa weeyaan gacmaha ka dhexmooda. dad baa jira gacmaha aad uga dhexmooda iyo dad lugaha ka dhexmooda. maanta waxaan rabaa doonaya inaan ka sheekeeyo dadka gacmaha ka dhexmoonaya ee qabowga badan gacmahooga galayo amba qabow badan uu hayo markaste, iyagii oo gaaman xiranay, iyagii oo waxa weeyaan qarinaya gacmahoogi, haddana qabowgu insayrka amba gudaha ayuu ku jiraa. marka asxaabay, waxa aan rabaa inaan idiga faa'iideeyo maanta insha allah. halkan waxaa ii yaala sanjabiil amba jinjar ayaa ii yaala. halkan waxaa ii yaala saliid ayaa ii taala, zaytuun ayaa ii taala amba olive oil baa ii taala. halkan waxaa ii taala toon ayaa ii taala, toon buudara ayaa ii taala. iyo halkaana koob ayaa ii yaala. koobkaasi waxaan ku samayn doonaa beero qandaca iyo malqaacad yar tayar. waa idin tusi doonaa malqaacadda yar iyaan biyaha qandaca sanjabiilka ayaan ku darayaa insha allah. malqaacadda yar intaan ku daro waa inuu qofku cabaa. qofka gacmaha ka dhexmoonaya waqtiyada qaboobaha maalintii mar hadduu cabo insha allah biidin ilaahi kariim shifa ayuu noqonaysaa. halka kale waxay taala toontii oo buudara. toonta iyo waxaan isku darinaa olive oil ayaad dabka saaraysaa. dabka markaad saartid ood yar diirisid waa idin tusi doonaa insha allah. dabkaan soo saaraya. dabkaad saaraysaa marka yar kalarkiisa yar bedelo oo zayt olive baad ku daraysaa amba olive oilka amba zaytuun ayaad ku daraysaa. waad ka yar walaaqaysaa insha allah. gacmaha biidin ilaahi kariim waa caafimaad ayay noqonaysaa. ha laga faa'iidaysto, waa fursad qaaliya insha allah. waxaan saaray dabka ayaan saaray insha allah. olive oilkan ku dari doonaa ayaanba in yar baad iska samaysanaysaa, gacmahaad marsanaysaa biidin ilaahi kariim caafimaad insha allah. waxa weeyaan bardolyadayn walatraaf. bardolyadayn walatraaf baa la yidhahdaa. waxaa qabowga markuu gacmaha kaa hayo iyo gacmaha inta hore ee cidiyaha u dhowdhow dadba aad uga dhexmoodaan. marka insha allah laga faa'iidaysto, fursad qaaliya weeyaan insha allah. fursada dahabiya weeyaan insha allah. gacmahaas qofku marsanaya marka insha allah biidin ilaahi kariim naafic ayuu kuu noqonayaa, waanad ku bogsanaysaa insha allah. hana la iisoo duceeyo, idinkan waa idiisoo duceynaya insha allah. wax cusub ayaa idiin sheegayaa insha allah saad uga faa'iidaysateen biidin ilaahi kariim. marka insha allah waxaa noo soo
diiraysaa amba inoo soo casaanaysaa toontii insha allah dabka ayaan saaray wakaas insha allah ayaanba yar baad iska samaysanaysa anu wax badan ma sameynayo wax yar ayaan sameeyey insha allah si moogtahay aan idii tuso insha allah asxaabay wakaasi insha allah waxa weeyaan toontii wakaasi toontii weeyaan olive oil yarad baan ku daray insha allah wax yar ayaan sameeyey laakiin maasha allah wakaa dabkan aan saaray qofka hadduu doono wax badan uu iska samaysan karaa markaana meel buu dhiganayaa insha allah wakaati asxaabay wakaasi insha allah maqaacada yar wax yar ayaan ku daray oo maxaa la yidhahdaa sanjabiilkiya ayaan sameeyey waka asxaabay waad cabaysaa qabowga badan markuu jiro insha allah shifaaan shaafi huwa allah ilaahay baa dadka caafimaadka siiya insha allah caafimaad buu kaaga dhigi doonaa insha allah wakaasi waxa oo kaloon halkan waa inaga arkaya saasaan yar casey toontii weyn buudarkii haddii ay buurbuur tahayna waad ku samaysan kartaa kaa doontida ayaad ku samaysanaysaa marka wakaa olive oil iyo waa toon amba buudara ku ahaato amba ta buurbura mid ay doonto ahaato insha allah sanjabiilkaana waad cabaysaa isaga oo qandaca markuu ku yaro qaboobo ayaad cabaysaa insha allah biidn illaahi kariim shifaaan huwa allah shaafi waxa weeye ashaafi huwa allah ilaahay baa dadka caafimaad ka siiya insha allah laakiin ka faa'iidaysta fursadda qaaliga waxa weeyaan maqaacad yar oo sanjabiila ood biyo yaroo qandaca aad ku darsanaysid amba biyo yaro kulul laakiin waa inaa markuu qaboobaad cabaysaa iyo in yar oo toona iyo olive oil ayaad isku daraysaa wax yar oo olive oil gacmahaagaad marmarinaysaa insha allah biidn illaahi kariim naafic waad ka bogsanaysaa biidn illaahi kariim asxaabay marka insha allah maanta faa'iidadaasaan idin wada ka faa'iidaysta waana fursad qaaliya insha allah qabowga maadaamuu qaboobihii soo galay insha allah waanad mahadsantiin walaalihiina kalena u dira khaasatan dadka qaboobaha jooga aad bay uga faa'iidaysanayaan insha allah aad baa idiin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waanad mahadsantiin dhammaantiin